halkani waa alxaqiiqa. warka xiisihiisiyo xaaja ka qarsooniyo halkaa dahsoona alxaqiiqa weeyaan xogtu meeshaytaa. barnaamijka caawan ka hadlaya waxa uu noqonayaa laba qodob. mid yuusuf shaacir khuseeya oo hadalkiisii aan dhageystay oo aan ka baaraandegay aan qodob isu taagi doono. waa kii labaad ee uu soo duubay ee uu iska soo duubay iyo dardaaran dowladda. mar labaad bay ka fursan weyday inaan hadlo ceeb la'aanna waan isdul taagaya. wixii yuusuf ku hadlay ayaan qodob isu dul taagaya oo aan ummadda u iftiiminaya. dad badan ay ka daahan tahay. second dhowskii baan bixinayaa tallaalka. markaa way ka fursan weyday kol haddii kii hore lagu caafimaadi waayey ka labaadna inaan soo diro. aan bilaabaye yuusuf ayaan ku horraynayaa. waxay arrintiisu ka bilaabantay warqad wasiir qoray oo uu ka jawaabay oo uu aqbalay oo ummaddu ka qaylisay oo ahayd markii ugu horreysay ee dowladda soomaaliya qof somalilan gudaheeda jooga oo hargeysa jooga ay digreeto ku magacawdo. hore umay dhicin. wax laga qayliyo oo aan laga aamusinna dee waa haydo ugu bay nagu ahayd. waa qodob mucjiso ah. ka labaad wuxuu ahaa ninkii digreetada lagu magacaabay oo aqbalay oo isagoo inoo dhuubaya oo doonaya inuu ina khiyaameeyo haddii alla kuu roon yahay aqbalay. qaydaa ka dhacday. anigu waan ka hadlay. kumaanku reer somalilandna way ka hadleen. isagii dib buu uga hadlay. wixii ku hadlay dad badan buu ku khaldayaa oo maantaba lahaa si fiican buu u hadlay iyo wuu ka soo noqday iyo wuu iscaddeeyey ayaga oo kuwaasi u baahan in af soomaaliga lagu hadlayo loo turjumo. qof walba bini aadamka in buu arkaya. indhow garad iyo indheer garadba dadku waa leeyihi. hadalladii yuusuf baan isu taagaya. yuusuf hadalladiisa dambe ee imika uu ku hadlay waxay ahaayeen qaar uu somalilan ku caayayo, qaar isagu uu ku faanayo iyo beentii uu ku celiyey. wixii loo igmaday ee loo magacaabay oo uu weliba aanu diidinay uu aqbalay isaga oo inoo dhuubayo oo raad gadanaya. waan isu taagaya. qodobada yuusuf uu ku hadlay waxay ahaayeen kow wuxuu iska dhigay nin qayladii dhacaysay oo dhan laga maarmi waayey isagoo faanaya. wuxuu laxajeclo layga hayey ayay ummaddu u qaylinaysay oo nin waxaan ahay la dareemayo haddii uu tegayo oo nin tegayo oo la celinayo ayuu yuusuf dadka uga dhigay. somalilan anigu waxaan ka mid ahay dadka tacabka geliyey nabadayntii aada uga soo shaqeeyey 1996kii. nabadda maanta somalilan ku fadhido ee meel walba lagaga faano waan ugu yaraaba weliba ergada iyo guddida markaa shaqaynaysa waan ugu yaraa. raggii maanta golaha guurtida ku jiraan qaar waa salaadin aan wada shaqaynayno waa nool yihiin badankoodii. raggii aada uga soo shaqeeyey baan ka mid ahaa. tii u dambaysay daroor waxaan ka wada shaqaynaynay madaxweynaha imika joogay wasiirka arrimaha gudaha. labadaba waan ka wada shaqaynaynay. tacabka noocaasa baan somalilan raggii geliyey baan ka mid ahaa. kumaanaan khasaarinoo dee meesha aan wax ku noqonay magaca ku yeelayna waa somalilan oo faa'iidadii dee waanu helnay. marka dad si fudud ama si yaroo dee iska jaban oo fudud isaga tegaya ama tallaabo isaga qaadaya dee ma yihi. sidaana ma ahayn arrintu. nin iyo laba iyo saddex iyo boqol iyo boqolaal toona hadday tagaan somalilan waxba ka bedeli maayaan. hadday la soo dagaalamaanna waxba ku kordhin maayaan. hadduu joogo iyo hadduu maqan yahayba yuusuf qof buu ka yahay somalilan dhowrka milyana ku nool. wax allaale iyo waxay beddelaysaana ma jirtee. faan iyo been
ودتك عقل جود عايو وين هذا الكيساس يميل خدع dadku yuusuf may celinaynin qarankooda ilaashanayay qiimuhu ku taagan yahay ay garanayaan halka uu marayo wanaagsan ay garanayaan waxay ku haystaan ay garanayaan kaasay difaacanayaan oo eeganayaan dalkay leeyihiin ee niman yuusuf la jecel ka haysa ama isaga u qaylinaya ama isaga celinaya dadku may ahayn dadku caayaya aqliga dadku caayaya isna uu faanaya Somaliland waxa ka tagay siyaasiyiinteedii dalka u soo halgantay ee aqoonta lahayd ee taariikhda weyn ku lahayd ilaa ingiriiskii oo madaxweynihii ugu horreeyay ku jiro oo gudoomiyihii SNM ku jiro oo kuwii ugu magaca weynaa Somaliland ay ku jiraan ayaa Somaliland ka tagay oo idaacadda ka sheegay BBC-da inay ka noqdeen goonistaagii oo ay waxba u noqon weydii adigoo oo kale oo tagayna xalaale iyo waxaad bedeli kartaa ma jirtee faan un halka kula galay iyo faataadhug iyo dadka caayis qodobkaasi waa gaf ummadda ku gafaysaa adiguna been bad sheegaysaa qodobka labaad waxa uu Yuusuf yiri isagoo oo dadkii reaction ka sameeyay arintaas ama ka xanaaqay ama dhibsaday ka dhigaya qaar dawladda ka xigsanaya oo madaxweynaha la qolo ah ayuu haddana yiri tusaale soo qaatay dawladdii Soomaaliya ee tan duntay waxay ku duntay in dadka qaar ay dawladda iska xigsiiyeen oo sidaas ku burburaysaa ka daayay Somaliland hal dardaarana baan oran lahaa Soomaaliya dawladdii Soomaaliya maxay siyaad hogaaminayay hal cudur baa riday oo burburiyay halka cudur bay waxa kalena ka sii farcameen hadda dalkayga dhageysta halka cudurka Soomaaliya burburiyay wuxuu ahaa maamulkii xilliga jiray yaa la kala dhaweystay cid baa waxay u aragtay inay maamulka dadka kale uga dhawdahay waa maamulkii siyaad barre dabeetana bulshadii kale oo dhan markii la fogeeyay bulshadii kale iyo ciddii baa isku dhacday dabeetana dawladdu way duntay Somaliland waxaan oran lahaa aantii ka nabad gal oo xukuumaduhu ha noqdeen kuwa dadka u dhaxeeyo aan la kala dhaweysan qodobka Somaliland waan u soo jeedin lahaa taasina waa qodob kale oo isaga ku taagan wuxuu ka dhigay dadkii hadlayay oo dhan inay madaxweynaha reerkooda yihiin madaxweynaha maanta joogay iyo dawladda maanta joogta iyo tii hore joogtay labada nin kala maamulayay labadu aniga way siibay labada nin oo labadaba taariikh wadanka ku leh oo u soo halgamay oo magac iyo sharaf iyo taariikh kula weeyaan Muuse Biixi iyo Axmed Siiraan labaduba ixtiraam bay mudan yihiin hayb haday noqotana way siibay ima kala xigaan dawladdii laakiin horiyatan tii hore qaraaba kiil iyo haddii alla ku roon yahay iyo xigtaysi ay ku jirtay oo la naga xigtaysanay anagu Hargeysa joogna oo la nagu dulcunayay oo ka yimaado lagu kiilay qaraabo iyo qabyaalad haddana anu maxaafidta markaa baaha waxaan la waryaareen ku qaylinayay warkan waxba cunayaa cid inoo dhaanta ma hayne qaarna dilay halka soo taaganay ka daayay qeyradan lahaa waan difaacay markaa baan sidaa maanta baan difaacay oo maxaafid baan ahaa معارض ما نحين مركابة waxa maxaafid iga dhigayna waxa halkan ii soo taagan qaar inay ilqaan doonayo inay dilaan doonayo laakiin kuwa wax cunaya wax boobaya inaan dileen baan ogaa marka waxaan leeyahay tii hore ee adiga lacagta baad bilaashka ku siinaysay ee aan mid aan shaqaysan ku siinaysay ee raasmaalka maanta aad haysteed wax ku rogroto ku siisay ayaa qaraabo kiil iyo hadii qabyaalad iyo xigtaysi ay ku jirtay marka ilaahay laga baqanayo isu maahe looma maaha adeeg ugu taagantay tamaanta joogta madaxweynuhu cid uu ka dhalan la qabiil uu noqon la maanta kuwa ka dhashay ay iyo aflagaado iyo gaf waxaan ahayn kuma qabaan tii hore ku qabeen oo ay baamishar ganacsi dawladaysan ku qabeen oo boobka qayb ka ahaayeen qaar badan oo ganacsato ahay ama hadii alla ku rooyay dawladda ku xidhnaa wax ku sheegay halka mooyaane reerka madaxweynuhu ka dhashay wax ugu soo kordhin madaxweynaha yimi ma jiro ilaahay baa ka marxaatiya annaga ka marxaatiya xigta maalintii ugu dambeysay qaraabo oran maayo boqolkiiba boqol buu day samaawi yahay oo soo degay musabixi oo qalad uu leeyahay iyo dhaliilba laakiin dawladdii hore iyo dawladdan maanta kuwii tii hore lacagta ka qaadan jirayna maanta yiraahdaan yaa laga xigtaysan dawladda la kala xigtaysanaya
وعيب يعي هدي دولة داس حكتو أي عيدهم كأقبليسو محمد وسعيد بكيل هرانا ورشة إما كانوا كعلنيا بين ويان مركز يعني يقف ومد الرئيس وملا تكون قفيسو أو أتذكي كهذا لا يودنا كدقيسو مدحونا القبيلة لما قبيلة منهين أديك يا مدحوني ونو سمنتين يسكون بانو شرتان حقا نشيقين قضب كاسنا وقف بان ليه يفان قضب كالي أكاديمية أيو سوقاتي هدي قال لكورنو يهي إن يوسف إن يتهي مد إن قارية يو هدراوية كشقين شرين وخطرة وعين كنا وأكاديمية حمر كويالا وحلي هذا لبا أكاديمية كويالا مد وحلي هذا أكاديمية علمية فنكا يسوقانته وأكاديمية في الصومالي قال له قري لبا يتضباطنكي يا هدراوية قارية يا كشقين شرين وأكاديمية قديمة mid kalena dhawaan baa la magacaabo waxa la yiraahdaa agaal la yiraahdo Soomaalida geeska Afrika ayaa ku shuraakowday akademiyadu dee daar meel taala maaha akademiyadu dadkii bay ahayd waxay baabaaday markii Soomaaliya burburtay ku kala tagnay ayaa akademiyadii baabaaday dee hadraawiga iyo kuwaad ka sheekanaysaa ayuu Saciid Saalax baa ugu dambeeyay waxa marka cararay markii afweena ay ku duntayo 3 sanadood in ka badan joogay marka Mareykan أكاديمية واحد بعضي ما كي بربر كيمي أكاديمية ما أنت حمر تعلانة ما ترسي أمامي وبانت تاسنا إذا تقول خلد قرطة معها واحد كلا أو يوسف قف كسمي دولة الصومال لان يدرك الصومال لان أو كردقي مد حمر كوهي ناستي أو يدو وحب عرين كرويدي أو مد وح عرسي وحمر عرسي كوهي ناستي يوانا قفي ملك دع Soomaali oo dhan baafka wada ninka jooga hadha gaaro ee Djibouti ka shisheeya afka wuulay af Soomaali ku hadlaya afka wax la wada leeyahay Soomaaliland waxa leeyahay waxba cudurti ka qaadina xamare oo marka xamar wax laga yiraahdo idina hayaacine de hal abuur baa lidinka baahay Soomaaliland hal abuur keenade nin hal abuur keenay ha ku hinaasi muxuu saaw jeelay muxuu ka magacaabay uu magacaabaya kuwa dambe aniga ka dambeeyna wala soo magacaabaya hadii la keen waayo xal ninka Soomaaliland oo maanta lama jeeranayo oo wax walba kaga horeysay geeska Afrika Soomaali marka la iska dhigo halka dawladda waaweyn Afrika kaga horeysay wax walba ka dhigay inay xamar daba socoto xamar wax kaga horeysay xamar ku hinaasiiso ayuu ka dhigay tawaracay dalku caayaya oo ku gafaya meel aan jirin oo amaan iyo dawladnimo aanay oolinna wuxuu ka dhigaya meel aan ku hinaasnayn daba socono iyo waa gaf labaad oo gaf saddexaad يوسف هذا الكيس واحد كم ذا إن هدي الله كورون يا يوحو يري دولة الصومالية دولة الصومالية سياسة بكرة حيسوا وحبي يسكوا هيان يسقوا مركع ومثل الدحاب بس كده كيان لبضن بدنا هين ودحى هذا نوح اللي هي صومال لما مقع عيسى ما يسوي حكوها دي ماشي أنا وحكون نقولين مقع أخويا لنا وسومالي له وفائدة دي دوانو هلا مركا dad si fudud ama si yaro de iska jaban oo fudud isaga tegaya ama talaabo isaga qaadaya deemayhi taasi waa ta Somaliland halkaas baan iyada dhigaya horteedna Somaliland muu jirin 20 ka sanadood hargeysa joogay ayuu dhaqday magac helay lacag helay idaacadda wuxuu ka maqli jiray oo weligii arag dollar uu ka maqli jiray ayuu ku helay Soomaaliland magaceeda iyada dhistay oo wax ka dhigtay Soomaaliland anaga shicibkeeduna weligeed wax nama siin dawladda ay leedayna weligeed wax nama siin ونقوم سوقلنا كتابنا كمرينا وحنا حمالنا مويان لكن أذيك إذا وحكارك تي أفكار قاعد كشيء جيس هذانا وأذيك نحذا كأه يدي سوماليا نحذا هو أفكار كله هذا الله ذو حكوا شرتي هراء إلى الله هيد أنا قاعد سومالنا وحنا نرهنا وملا وحنا نرهنا يعني وحكارك إياه ميل السجوا أنا ولا هين أو نجيل كلو نكل اللي هي مرمر بحال كيور كيدا هذا أيش كده جايه waxay ku tusaysaa in aanu dalka uu ka marxaatiga ka furayeen wax ka dhigay aanu isagu waxba u hayno waxba ugu fulay abwaan buu Yuusuf sheegtaa mid kale wax sameeya oo murti sameeya de raga qeyrkii
iyo kuwa kale ka yaryariba dee somalilan heesay u sameeyeen ay runta u sheegayaan oo ay ugu hiilinayaan dhagaha ugu rida inaanay dhacayn midhana laab saalax baa sameeyey weersamaa sameeyey dahagaas baa sameeyey qaar kalaa sameeyey dee isagu hal hees uma hayno oo halkii kuwani lahaayeen dhagaha ugu rida inaanay dhacayn dhakada ugu rida inaanay dhacayn isagu kumuu beerin waxba kumuu darsan loo sheegi karo jacayl iyo caashaq buu ka sheekeynaya dahabkii lumay iyo gabadh baan jeclaaday waxaasuu dee ka sheekeynayay dabeetna meesha waan fadhiisannay waa nala soo dhaweeyey nala marxabaysiiyey waan xusuustaa waxaan fadhiistay dhinac kadinkii xaggan gurigu dhinacan dhabarkaygu iga xigaa meesha lay fadhiisiiyey markaa albaabkii laga soo gelayay ee dhinacan dadka ka yimaada ka soo gelayeen ayaan dheegiisa fadhiyaa halkaa hortaydana kursi baa yaal in ujeedo loo dhigay iyo inuu iska yaalay ma hubo cabaar meeshii markaanu fadhinayo anigu aanan wax badan ogeyn markii dambaan ogaanayaa soo anaa layla shaqaynaya gabadh baa markaa lay tusaya inan baa lay tusaya weliba inantu iyadu lafteedu war badan ma hayso ana war badan ma hayo waa gabadhaan labadan midna ahayn haa labadan midna ahayn way ima doontaa dabadeetana dhowr jeer abaan raagsan ku meeshaan ka tagna dee waqtigii oo maya oo waa kaasoo dabadeetana inantiiba mar dambe soo baxday waayahay agtayday maraysaa markaasoo kadinka dhinaciisii baan fadhiyaa way dhaaftay kursigii hortayda ayay soo fadhiisatay kursigiisii bannaanaa waayahay been sheegi maayee aniga markaasaa waxaan maqli jiray dabkaa ka tegey markaasaan khadka ka baxay anigu yaa kama hayna taana waxaan soo qaadanayaa waxaan laga shaqaynayay iyo af soomaaligan iyo waxaan laga shaqaynaya waxa uu yahay maanta waynu ognahay caqliga saliimka wayna siinaya garashadeena ayna siinaysaa soomaaliya iyo muqdisho gabay iyo murti iyo af iyo xildheeri midna uma baahna dowladnimo iyo ammaan bay u baahantahay iyo dimuqraadiyad iyo wixii daruuriga ahaa bay la'day waxaanay ka raadinaysa ninka hargeysa joogay warqadda ugu soo samaynayso ee ay ugu soo gabanayso haddii alla kuu roon yahay isdhexgalka iyo hadalka iyo xeeldheerida iyo gabayada iyo waxaan la sheegaya soomaaliga waa maxay su-aashaa qof kastaa inuu isweydiiyo ayaa loo baahan yahay waxa weeyaan siyaasadoodu ay ku dhaqmayeen muddooyinkii u dambeeyey waa isdhexgal lagu burburinayo dowladnimadeenna laynagu soo gelayo qofka marka la soo diranayo ee ay dowladi diranayso ee ay dal kale u diranayso dee odhan mayso wixii ay u soo diratay inuu sheegto dee sax maaha waa inuu ku soo gabadaa wax waa in ninkaasi umuliso uu noqdaa markuu doono wax ka umulinayo waa inuu noqdaa dhakhtar xoolaha ah waa inuu noqdo yidhahdaa soomaali baan wadaa iyo murti baan wadaa oo xeeldheeraan ahay waa inuu wax isku soo toosiya haddii kale shaqadii loo diray dee ma qabanayo yuusuf waka shaqada loo dirtay waa tan isdhexgalka waanu ku shaqaynaya oo ku shaqaynayey iminku ku shaqaynaya su-aasha kale meesha taala waxa weeyaan ma aqbalay yuusuf warqaddii mise muu aqbalin dad badan baa u haysta oo iminka ku hambaliyey inuu lahaa wuu aqbalay wuu diiday warqaddii iyo xilkii loo magacaabay ee xeeldheerida ahaa dad badan baa u haysta oo aaminsan inuu yuusuf dee deedifeeyey uu iska diiday dee muu deedifeey wareegtadaa soo baxday meelaan ku idhi waan aqbalayna iyana ma jirto meelaan ku diidayna iyana ma jirto yuusuf iska daa warqadda inuu deedifeeyo ma odhan karo somaliland darbaan reer soomaaliya dee laba dowlad baa la kulanay afkiisa kama odhan karo kuma dhici karo hadduu daacad yahay wuxuu odhan lahaa warniyo laba dal baynu kalanay af soomaaliguna wuu naga dhexeeya anigu wasiir dowlad kala ah oo aan dowladdayda ahayn dee warqadna iima soo qoro hadduu ii soo qorayna nin qaadanaya ma ihi raalli iga ahaada wuxuu ina yidhi isagoo inoo dhuubaya oo inoo macaanaynaya oo wixiisii uu doonaya inuu halkaa isagoo jooga ku shaqeeyo wuxuu yidhi siyaasad iyo wasiir iyo madaxtooye iyo waxaa anigu nin aqbalaya ama aqbalaya ma ihi laakiin
af soomaaligii iyo wixii kale waan idinkala shaqaynaya laakiin taasi waa maxay halla wixii hore dhan bay masaxaysa bartaa isagoo jooga in gunnadiina la siiyo af soomaaliga uu leeyahay hadaa xogisa weydiisan waxbaan idinkala qabanayaan uu ku shaqeeyo ayuu dee inoo sheegay inoomuu sheegin wax kale oo intaa ka duwan hadal iyo helbaba way kala qalan yihin maanta aniga haddii magacayga saddexan warqad xamar lagu soo qoro dee si kaleeraan ugu hadli lahaa la waryaa isku dowlad ma nihin isku dal ma nihin anigu somaliland baanay dowlad baan leeyahay dal baan leeyahay wixii naga dhexeeya waan ku kala tagnay raalli ahaada ayaan dee odhan lahaa haddaan daacad ahay isagu laakiin daacad maaha walla inaanu hayn hadalkiisa ka muuqata waxaan leeyahay nama qaldi kartid nin tuuga oo haddii alle kuu roon yahay xilligii reer miyiga lahaa xoolaha xadi jiray ayaa soo samaystay laba kaboodoo maqluubka raadkoodu yahay dabeeto markuu xoolaha xado xaggii maqluubkaa loo raadiyaayo lama hela ninkaa xaggii u socday maayo xaggii uu ka yimin baa dee loo raadiyaa oo raadkiiba xaggaa sheegaya inuu qofku dee u socdo yuusuf kabahaasuu maanta noo soo samaystay oo dadkii ayuu ka raad gadanaya wixiisii buu doonayaa inay u shaqeeyaan dadkiina caqligoodu xado oo uu been ka sheego wixii uu watay wuxuu doonayaayoo kale isagoo halkaa jooga inuu shaqadiisii wato oo uu hawshiisii wato mana soconayso dadku dee inta sacabka kuu garaacay si aad u yeedhatay ee reerkiinna u badan dee inaad idhi maaha in wax kastood ku hadasho kuu garanaysa oo kaa caqli badan ama intaad garanaysa dee ayaa dhulka kula joogta dalkana kula leh ceebi ma jirto aflagaada nagama istaaheshid ku aflagaadayn mayno ku caayina mayno laakiin waxaanu kuu sheegaynaa in waxaad ku hadlaysa lagugu garanayo oo aanadna khaldi karin oo aanad dadka khaldi karin afar nin oo reerkiina intaad soo ag fadhiisato inaad waxaad doonto ku hadasho shacabka ay kuu garaacaan somaliland dee ma ha u qaadanin intaa tahay intaa inay tahay ha u qaadanin way ka ballaarantay kuwa ka falceliya hadalkaaga iyo ka xanaaqina ha ka dhegin qaar adiga aad u tahay nin khatar ah oo lexjecla ka hayso oo ku celinaya haddaad imika tagto iyo haddaad joogto nin somaliland wax ka beddelaya ma tihid laakiin annagaan aqbalayn oo dadka caqliga laan aqbalayn in qof soomaaliya soo magacawday uu hargeysan oo dhex fadhiyo oo uu ay dhacdo ayaan la aqbali karin yuusuf waxaa kale oo uu caayay dadka reer somaliland oo uu yidhi qaar baa lahaana wasteeya waa gaf iyo cay hargeysa iyo somaliland dowladnimaa taalla waxaa muuqanayaa yaalla xamarna waxa yaallaa way muuqataa iftiinkii joogo aakhirayga iga wastee dee lama arag taasina waa beenuu sheegayo qof miyir qaba odhan maayo wastee ta afka iyo haddii alle kuu roon yahay fanka iyo suugaanta iyo abwaanadaa timi abwaanada soomaaliya hadday danaynayso abwaan iyo suugaan fanaanintii ugu qiimaha badnayd ee biladaha haystay baa silci ugu dhintay xamar xuseen oo faarax dubad baa ku dhintay oo gaajo iyo silci iyo darxumo u dhintay seenab xaaji cali baxsan baa meydkeedii gaari qaadan la waayay dowlad ma hayno meydkeedii gacantaanu ku soo qaadanay marawaaska bacdi meel la maryaa la waayey hal nin oo madax oo maanta albaab ama dhagax ka qaado waa la waayey cilcada aad u jeedaan baan u lugayne ciday sugaysa ayada u taala fanaaniinta waa barina ayagoo dowladda ku wada hoosgabanaya ayaga laftooda way joogaan eedaha xubay kaga jiraan seenab xaaji cali baxsan qof aan ahayn ama qof maanta darajada ay ka gaadhay Soomaaliya ka gaari karaa ma jirto maanta day wadan kale ku dhiman leed waxaan oran leen ma naloo qaado anigu saaka waxaan ku taliyo Soomaaliland loo qaado Soomaaliland saakina loo qaado ayaanu diyaar u ahayn ayagaana habsaamiyay xalay 7 saac baan war ka sugayni ayaga iskala bedelayo igu sawiriya madax iyo balaayo kalaha anagu madax nooma aha dawladna ma arag dad shacab weeyaan waxaan marka ka codsanaynaa nimanka dawladda isku sheegaya in ma aragte ay islaantaasi miskiinta ah oo u soo halgantay wadankaas inay calanka 3 cisho intaas anaga codsiya 3 cisho hoos loogu dhigo 3 cisho ka suweynaa haduu halgamaa jiro waa halgamaa rag iyo dumarba cabdi tahliil warsama ku dhintay xasan diiriye faarax baa ku dhintay intuba silib baa u dhintay kuwii dhex joogay baa silib u dhintay markaas aad nooga dhigaysaa mid hargeysa jooga inay wax tarayaan timir laf baa ku jirta
waad shaqaynaysaa isdhexgal baana lagu soo dirtay lama qaldi kartid abwaan baad sheeganaysaa iyo qaraxyo hargeysa waxaa jooga kuwii dhowr iyo kontonkii u halgamayey abwaanada ahaa ee habeenkii calanka la saaray joogay ee habeenkii kowda luuliya la midoobay xamarka heesayey joogay hargeysa gaadhiga ka raacay ayaa qaarkood nool yihiin maxamed aan dacar baa ka mid ah shantii Soomaaliyeed aan ku taamay sheegaynay shantiiba way jiraan shantiiba way shaqaynayaan shantiiba way shaqaynayaan marka waxaan ugu fikradan qabaa waxa weeye shantii Soomaaliyeed mid waliba meeshu doonaha joogay mid waliba gaarigiisa isaga wata anigu Soomaaliland haddaan ahay gaarigayga anaa wadanaya cidina ii wada mayso cidaan ka sugayaana ma jirto inay gaariga ii warto yay ku soo talagelin saasan qabaan tan iyo tii hore iyo dawladihii isbedelay oo dhan kuwii loo soo xidhay ee u soo halgamay baa jooga oo aan maalin qura ku faanin wax adna waxaad leedahay maalin baan meel lagu heshiinaya aan gaadhi raacay meel baan raacay baad nooga dhigaysaa inaad wax qabsatay waxa uu Soomaaliland tartay Soomaaliland waxba ma tarin iyadaa wax ku gashatay wax kaa dhigtay shaaraanad lahayn kuu gelisay magacaanad lahayn kuu samaysay haddii alla kuu roon yahay haddana aad ka shaqaynaysaa dhibaatadeeda oo adiga dhexda u ah iyadii Soomaaliya hadalkaaga ay ka muuqato waxaan ku leeyahay inaadeer waan kugu fahmaynaa nama qaldi kartid halkaa Yuusuf baan kaga baxay Soomaaliland waxaan leeyahay dowladdeeda hay'adaha amniga iyo kuwa khusayso war ninkaa ha loo yeero oo su'aalaha la weydiiyo oo waxay nagu uguban hore u dhicine dhagayeesha oo ninkaa u yeedho su'aalo weydiiya ciidamada ay khusaysay amniga iyo sirdoonka iyo nabad sugidda iyo CID-da ka hadlaya iyo kuwa khusayso su'aalaha la weydiiyo ha loo yeedho waa fari boorto oo sharciga hala mariyo wuu shaqaynayaae oo way muuqataa inuu shaqaynaye dhaqdhaqaaqiisa lacagta soo gelaysa xidhiirkiisa intaba mid la socda ha noqdo xitaa haddii la xidhi waayo ma joogi doono wuu u tegi doonaa kuwaa way la soo xidhmi doonaan waxyaabo badan baa gadaal ka soo bixi doona ninkaa dhaqdhaqaaqiisa dowladda hala socoto hana la xidhiidho su'aalna hala weydiiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu